jaamacad simad waxay aaminsan tahay dadaal badan ku bixinaysaa in ardaydeenu helaan aqoon isweydaarsi oo heer caalami ah si ay u soo arkaan ardayda asaagooda sida ay adduunka ugu soo bartaan sidoo kalena ay soo helaan khibrado caalami ah oo iyagoo ka faa'iidaysanayo barnaamijyo aqoon isweydaarsi oo ay jaamacadda dibadda ugu dirto ardayda semesterkan jaamacadda simad waxay dalka Turkiga gaar ahaan ku tahay university u diraysaa 5 arday oo wax ka barato kulliyadaha jaamacadda simad ayagoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka Erasmus Plus Student Mobility Exchange. waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaan hal semester wax kusoo baran doono dalka Turkiga anigoo ka faa'iidaysanaya programka Erasmus iyo Exchange program. Merhaba, adım Muhammed Abdullahi, Simad University İşletme ve Bulunma okuyorum. Erasmus program kapsamında Türkiye'de bir deneyim görme fırsatı olduğum için çok mutluyum. Hello everyone, my name is Mariam Nur Mohammed. I am a student at Simad University. I'm delighted to have the opportunity to study in Turkey for 1 semester as part of Erasmus Exchange program. أشعر بالسعادة وفخر كبير لأنني حصلت على فرصة المشاركة في البرنامج إراسموس بلاس للدراسة في تركيا لمدة فصل دراسي واحد. بسم الله، magacaygu waa Bintu Nuur Xasan. waxaan ahay ardayda jaamacadda Simad, arday ka mid ah. waxaan rajaynayaa inaan fursadda ka faa'iidaysan doono kana soo kororsan doono khibrad caalami ah sidoo kalena aan wax la qaybsan doono ardayda kale caalamka isaga iman doona. Erasmus Plus Student Mobility waa barnaamij ay maalgeliyaan midowga Yurub taasoo ujeedadiisu ay tahay in jaamacadaha ku yaalo wadamada Yurub iyo wadamada loo ogol yahay barnaamijkan ay ardaydooda isweydaarsadaan aqoon iyo khibrad iyagoo ardayda muddo semester ama 2 semester waxbarashadooda kusoo qaadanaya jaamacadaha ku yaala dalka. Xafiiska iskaashiga caalamiga jaamacadda Simad wuxuu dadaal ku bixiyaa sidii ardayda jaamacadda Simad ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursadaha waxbarasho caalami ah gaar ahaan isdhaafsiga ardayda. ma ahan markii ugu horeysay ee arday u dirto dalka dibaddiisa. jaamacadda Simad waxay hawshan soo bilowday sanadii 2018 taas oo ardayda ugu horeysay loo diray dalka Turkiga. magacayga waxaa Faadan Xasan Axmed. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay gabadhayda oo ila heshay fursad waxbarasho. horta waxaan ugu mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa tacaala bacdin jaamacadda Simad waana ku faraxsanahay fursadan qaaliga ah ee waxbarasho ee gabadhayda heshay. magacaygu waa Nuur Maxamuud Shire ahna waalid gabadhiisa u baxayso dalka Turkiga. waxaan halkan u joogaa inaan u mahadceliyo maamulka macallimiinta Simad University. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaamacadda Simad oo noo fududeysay in ilmahayna wax bartaan heer sare loogu gaaraan waxbarashada haddana noo heshay deeq waxbarasho oo dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka Turkiga. aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa. jaamacadda Simad waa in basiibadin doonta abuurista fursado caalami ah oo laga talagalay ardayda. Erasmus Plus ma kuma deeyan barnaamijyada ardayda ku faa'iideysadaan oo ku kordhinayaan khibrad iyo aqoon iyo waayo-aragnimo. semesterada kooxda doonaan oo hadareen ardayda wala bixin doonaan fursado oo hal semester ama laba semester iyo wala ka baradayaan jaamacado ka yaalaan dalka Turkiga ama iskala qaaradda Yurub. kumid nagoy jiilka jaamacadda Simad oo barashada adduunka ku qayb galayaan.